mar hore waxaanu maqlaynay ciidan barigaasa in taliyaha hore uu yidhi waxba nooguma filaha iska tagaan maantana waxaanu arkaynaa xildhibaan gobolka awdal ka soo jeeda in taliyihii booliska uu kaga cado inuu yidhi cadowga Soomaaliland baa tag xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadallo maalinimadii shalay ka soo yeedhay xildhibaan Maxamed Abiib kaasi oo uu sheegay in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland uu kala kacay hadallo gaf iyo dilqaaf ku ah qaranimada Soomaaliland xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka wadani oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay wax aan loo dul qaadan karin isla markaasina waxa uu ugu baaqay madaxweynaha qaranka Soomaaliland inuu arrintaasi raaligelin ka bixiyo maadaama isagu yahay shakhsiga soo magacaabay taliye dabagale haddii sabuu yiri xogayuhu ay dhici weydo arrintaasi waxa ka dhalan doonta cawaaq xumo baasan waxaana soo bixi doonta in si gaar ah loo faquuqay shacabka soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib ee gobolka Awdal doorashada horta dhaxdi weyn baa dhacday ninka hadlayay xildhibaan Maxamed Abiib waa xildhibaan qaran weey waa nin qaranka uga mas'uul sharci dejinta waa nin shacab ay soo doorteen waa nin gobolka soo jeeda marka ninkii qaranka iyo shacabku ay soo doorteen ee xildhibaanka ahaa oo kaga cawdo mas'uul kii ciidanka u sareeyay booliska in uu ku sheego isaga inuu yahay cadowga Soomaaliland runtii arkaasi nusqaan weyn foolxumo weyn ayay dalkan ku noqotay ree awdalna ay runtii ku noqotay waxaan qabaa inuu ereygaasi kuma dhicin Maxamed Abiib oo kaliya marka hore guud ahaan qaranka Soomaaliland ku dhacay shacabka Soomaaliland marka labaadna waxa ku dhacay gobolka Awdal iyo shacabkii soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib ayay ereyga ku dhacay Maxamed Abiib wuxuu ku dhacay dadka halka ka soo jeeda iyo shacabka inta fayow ee qarankan in la wada leeyahay oo ummadda u dhaxeeyo oo Soomaaliland ka dhaxeeyo inta ogol ee garanaysa ayuu horta ereygaas ku dhacay maxaad u malaynaysaa marka uu qof xildhibaana ereyada noocaasa أو كجعودة تليه بوليسيا شعب كمساكين تا دنير تا إن عدكود ميل جارين وحيابها لو قلنا رقم حد ملاين سان عن فيلا إن أول حلقة ورهم كلامنا يرنتي تاسهين وحنوجنا هاي مرة روح المغلني عيدا برجع ساين تلياه هرويري وحبنا نقوم في الله إسكتها ما أنت روح نركنا حلبان قبل كأودر كسوت شيء ده in taliyihii booliska oo kaga cado inuu yiri cadowga Soomaaliland baa tag macnaheedu waxa weeyaan qaranka ma inuu baal xajeclo leh ma in gaara qarankan leh ma in gaara u damqanaysa maya waxaan qabaa in aanay gaari jirin waxaan qabaa in aanay dimuqraadiyadda inaga xumaanin waxaan qabaa in aanay Soomaalilandnimadu inaga xumaanin waxaan qabaa qof kastoo xilka haya in xilkiisa lagu tixgeliyo waxaan qabaa ka bari jooga iyo ka galbeed joogaba inay Soomaaliland aanay cadow ku hayna shacab siman iyo mas'uuliyiin siman oo dalka wada damqanayeen haddii ay noqoto laba nin oo xil haya inuu midna xilka uu hayo qaranka ugu damqanayo midna xilka uu haya uu noqonayo inuu cadowga Soomaaliland yahay macnaheedu magac foolxun baa meesha ka soo baxaya waxaan qabaa in raaligelin laga bixiyo madaxweynuhu isaga magacaabay taliyaha booliska shacabka reer Awdal iyaga soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib shacabka reer Awdal waxay uga fadhiyaan madaxweynaha taliyuhu soo magacaabay gefka uu kula kacay xildhibaankoodii inuu raaligelin buuxda ka siiyo haddii aanay taasi dhicin waji kale runtii oo foolxun baa meeshii ka baxayo siday noqonayso dee shacabkaas runtii iyaguna ka dhursugi doona xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay 15 suxufi oo maalintii shanaad ku xidhan magaalada Hargeysa taasi oo iyadana ku tilmaamay sharci darro waxaana uu xukuumadda ugu baaqeen sida ugu dhaqsaha badan ay u soo dayso suxufiyiintaasi waxa runtii maalintii shanaad xidhan saxaafadii Soomaaliland waxaan runtii aad uga xunnahay inaan maanta garan weynay meeqaamka ay noogu fadhiyo saxaafadeenu Soomaaliland la maalintii la aasaasay la malka maanta waxa qayb libaax la ka qaatay horumarkeeda dimuqraadiyadeeda oo caalamkeena gaarsiisay waa saxaafadeena weey waxaan wada ognahay haddayna saxaafadda ahlin dalkeena inaan adduunka intiisa badan laga garteen inagoo aan aqoonsi badan lahayn waxa heerkayna gaarsiiyay waa saxaafadda waxay ka qayb qaadatay dib u dhiskii dalka dawlad abuurkii dalka dimuqraadiyaddii dalka horumarkii dalka aad iyo aad baan maanta ugu xunay iyadoo intaas oo dhan ahayd
inay maanta saxaafad intaa leegi iyo wariyaal intaa leegi ay ku jiraan xabsiyada Somaliland waxay meel ka dhacaya gaf ku tahay dimuqraadiyaddii Somaliland ay ku faa'iideysay waxay meel ka dhacaya gaf ku tahay in abaalkoodii dadkii si ay noogu shaqeynayay maanta laga dhigo si wadar ah in loo soo ururiyo xabsiyada loo dhigo waxaan aaminsanahay in tiirka afraad ee dalkan ay tahay saxaafaddu waxaan aaminsanahay jiritaankeenna ummadeed iyo jiritaankeenna dawladeedba inay tahay adduunka inagu xidhay waxaan aaminsanahay taynu kaga duwannahay dawladaha inagu xeeran iyo geeska Afrikaba in ay tahay saxaafadda xorta ee xalaasha aan lahayn inay kaga duwan dawladaha jaarka ah waayo waxay adduunku inagu majeeranayeen waxa sabab u ahaa saxaafadda Somaliland waxaan cod dheer runtii ku cambaaraynaynaa oo aan kaga soo horjeednaa xariga lagula kacay saxaafaddu way arkaysaa xisbigii kulmiye sidoo ula dhaqmayay xukuumaddiisa waxa caado ah xukuumaduhu marka ay waqtigoodu gabaabsi yahay ama ay arkaan indhaha shacabka ay xukuumayaan inay ka sii jeedaan inay halka ay ka bilaabaan tahay inay saxaafadda ka qabtaan oo ay caburin xorriyatu qowlka ay runtii sameeyaan waxaan u aaminsanahay in saxaafadda dalku ay tahay tii udubna riday dawladda kulmiyana soo saartay abaalkoodu maanta hadduu taa noqday waa nasiib darra runtii leeyahay xukuumadda maanta xaaladdu waxay ku maraysaa maskii qoratada qaatay ee liqina kari waayey tufina kari waayey waxaan leenahay waar ha loo soo celiyo xorriyaddoodii oo ha la sii daayo ceeb iyo foolxumo runtii maanta inagaga weyni ma jirto inaynu maanta saxaafadda intaa leegi inoogu xidhnaato xabsiyadeenna waanan ka xunahay baan leenahay taariikhdu iyadaas qori doonta muddada kooban ee xukuumaddan u hadhay ee dhowrka bilooda xagxagashadeeda iyo haraadsideedu way badanaysaa noocyo badanna runtii dadka way u gelaysaa waynu aragnaa inay siyaabo badan u saamaysay laakiin shacabka iyo saxaafadda waxaan leenahay u dulqaata wakhtigeena kooban ee u hadhay waa inaynu iska anba bixin doonaa muddada kooban ee u hadhayna waynu isdhaafin doonaa haddii alla markay doorashadu timaadee aad iyo aad baan uga xunnahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed andar iyo bushaar bashka MM TV Hargeysa